waa tahay soo dhawaada daawadayaal ciidanka Soomaaliland oo wili xasuuq baan ka geysanaya gudaha magaalada Boorame xilli meedeedka ay tubayeen wadooyinka soo gala magaaladaasi iyadoona dhaawacyadii dadkii ku waxyeeloobay rabshadahaasi halkaasi ka socda ay buuxdaafiyeen isbitaalada halkaasi ku yaala wararkii ugu dambeeyay xog waliba aad kaga baahan tahay qalalaasaha halkaasi ka socda iyo sidoo kale ciidanka Soomaaliland rasaasta ay u adeegsanayaan dadka shacabka ayaan sidoo kale muuqaalkaani ku qaada dhigi doonaa intaan u gudugalin xogtaasi oo dhameystiran waxaan ka codsanayaa daawada inaad muuqaalka la agsaato sidoo kalena YouTube-keena subscribe saarato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaani ku baahino markasta waa tahay sidaad la socoteenba xalay ilaa iyo saakay ilaa iyo maantadan oo dhan gudaha magaalada Boorame waxaa ka socday dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen dadka halkaasi ku dhaqan iyagoona ka biyo diidanaa go'aan ka soo baxay maamulka Soomaaliland kaas oo sheegay in bandhiga buugga xeer ciise lagu soo bandhigayo gudaha magaaladaasi Saylac isla markaana dadka shacabka ay diideen in bandhigaasi la sameeyo intaas kadib shacab careysan ayaa iskugu soo baxay gudaha magaaladaasi tan iyo xalay ilaa iyo maanta waxaana halkaasi ka socday dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata iyadoona ciidanka Soomaaliland ee halkaasi ku sugan isla markaana halkaasi lagu soo daabulay ay dhibaato baan u geysteen dadka shacabka ahaa ee halkaasi ku dhaqnaa muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan dad shacab ah oo waxyeelo ka soo gaartay rasaasta ay fureen ciidanka Soomaaliland iyadoona eedeemo culus oo wajahayo madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Ciro waxaana eedeentaas u jeediyay xildhibaan halkaasi laga soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib oo maanta shir jiraa'id qabtay isla markaana ka hadlay arinta halkaasi ka soo cusboonaatay sidoo kalena banaanbaxyada halkaasi ka socda ka hadlayay xildhibaanka waxa uu sheegay in maleeshiyaad hooyeysan oo Cabdiraxmaan Ciro halkaasi ku soo daabulay isla markaana dadka shacabka halkaasi ay ku leeynayaan oo raali ka yahay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro sidoo kale waxa uu ugu baaqay in si degdeg ah ciidanka halkaasi lagu soo daabulay looga saaro waxa uu qabtay 6 saacadood waxa uu yiri inta aysan qoraxda dhicin waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro in ciidanka uu meesha ka saaro si xal loogu helo xiisada halkaasi ka taagan sidaan xogta ku helay meedad ayaa tuwan wadooyinka magaaladaasi sidoo kale dhaawacyada dadka shacabka ah rasaastaasi ee dhaawaca ka soo gaaray waxay buuxdaafiyeen isbitaalada ku yaala gudaha magaaladaasi iyadoona dadka shacabka ah weli banaanbaxyada ay halkaasi ku dhigayaan muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada waxay muujinayaan dad shacab ah oo la sii wado isla markaana gaadiidka loo yaqaano ambalaaska lagu daabulayo kuwaas oo loo wado dhanka isbitaalka iyadoona rasaastaasi ay waxyeelo ka soo gaartay intaas kadib shacabku wali waxay wadaan banaanbaxyadii looga soo horjeeday go'aankii maamulka Soomaaliland ee ahaa in bandhiga xeer ciise lagu soo bandhigo Saylac iyadoona ka diidan go'aankaasi wali shacabku waxay dhigayaan dibadbaxyo xoogan iyagoo laga cabsi qabo in ilaa iyo biri dibadbaxyadaasi ay socdaan banaanbaxyadan ayaa waxay soo bilowdeen xalay ilaa iyo saakay waxayna soo gaareen ilaa iyo caawa ama ilaa iyo gabaldhicii maanta iyadoona halkaasi qasaare xoogan laga soo warinayo sidaad muuqaalkan ka dheehan kartaanba waa dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay rasaas ay fureen ciidanka Soomaaliland ee rasaasta ku kala eriyay dadka banaanbaxyada halkaasi ku dhigayay iyadoo ay xusud mudan tahay in wiil lagu magacaabo Axmed Deeq Mahad uu ka mid noqday dadkii halkaasi ku geeriyooday isla markaana rabshadaha ka socda gudaha magaaladaasi Booramo wiilkan ayaa sidoo la sheegay waxa uu halkaasi ka taagay calanka Oodal State waxaana kadib toogtay ciidanka Soomaaliland rabshadaha socda ayaa waxa lagu soo horjeedaa go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ka qaadatay bandhiga xeerka ciise ee magaalada Saylac kaas oo markii horeba ay joojiyeen maamulka Soomaaliland waxaa marka
dambeysa sii kordhaya khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawac ee ka dhalanaya rabshadaha iyadoona shacab careysan ay xirteen wadooyin halbowlayaal ah oo ku yaala magaaladaasi kuwaas oo ay ku gubeen taageeryo badan waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaasta kala duwan oo ay ciidamada boolisku u adeegsanayaan dadka shacabka ay halkaasi ku dhaqan ciidanka militariga dad magaalada ka soo saari weydo oo raggii dambiga kale soo taag weydo maxkamad madaxweyne waa la iska ka difaacaya dadku iska ka difaacayaan sida ugu dhaqsaha badan talaan isku imanaya dhalinyarada waxa leeyahay magaalada fadhiista annaga aybanayna waa la shirayaa kuma soconayso sidii hore kuma soconayso hadday dhaguhu daloolaan waxaan marka hore aan tacsiyadeynayaa dadkii aniga soo doortay ee xalay sidii bareerka ah maadartay magaalada loogu laayay waxa la ilaahay u naxariisto waxa kaloon ilaahay uga baryaa inuu ilaahay caafimaad u siiyo inta dhaawaca iyagana sida bareerka xabadda loola dhacay baan iyagana maadartay ilaahay u booga dhageele waalidiinta iyo dadkii annaga na dhalay ciyaalka dhalay ay namada ay hablaha la laayay kuwa la dhaawacay dhalan waxa la raqi tama waana wala iskaga dambeynaya sabra raggaasina rag iyagoo la dulmaya la laayay ayay xisaabsan yihiin oo iyagu maanta iyaga inaga maadaragtay dee waxa ugu weyn qofka bilaadanka raadiya waa inuu ilaahay agtiisa wax fiican ka helo waxaan rajaynaynaa ilaahay agtiisa wax fiican ka helaan intaa markaan ka imaado anu muddo saxaafadda lama hadlin waxaan magana halkan joogay waddanka isbeddel baa ka dhacay isbeddelkii ka dhacayo honeymoon buu ku jiro waxaan islahaa ha 40 baxo laakiin aad baan uga xumahay inuu ku 40 baxay inuu dhiig daadiyo oo weliba dhiig qorshaysan u daadiyo dadka salal iyo awdal degani boqolaal sanadood ay wada deganaayeen dhulka wada deganaayeen maxay isku qabsan waayeen xafladaha iyo xeerasha iyo arrimaha iyo ciyaarooga maxay isku qabsan waayeen maanta keenay markii xukuumadda Cabdiraxmaan Erro ay timiday maxay isku qabsadeen su'aasha madaxweynaha weydiinaya waxa isku qabsan isaga ka soo jawaabiyo waxa cusub isku qabsadeen waxa jiray qorshe aan madaxweynaha kala hadlay oo in badan ka hadli jiray laakiin toos u balmaray ayaa maanta fulintiisa ay buurma ka socotaa halka waxa kaga hadlan oran jiray hay'adaha ammaanka iyo kuwa dhaqaalaha reer awdal waa laga ilaaliyaa dawladda cirana markaan u dhisayday ku tabcayna waxaan ku nidhi war kuwa ku jiraan laakiin waa laga ilaaliyay sababtii looga ilaalinayna saakay buurma ka dilaacday oo waxa ahayd inaad dadka la laayo ayee ka waxa la madaxweyne aad baan uga xumahay in adigoo sanadaan jirin maad aragtay dhiig faraal lagu geliyay maanta wax laga filayna ma hayn waxaad ogeedeen in xukuumaddu xeer ka beesha ciise oo ay go'aan ka soo saartay oo wasiirka arrimaha gudaha ka akhriyay magaalada Seylac la yiraahdo waxaan aanika garanayay maalintii go'aan ka soo saareen inay halkay u socdaan tahay inay labada beelood istilaan oo sidii caruurnimadii waad garanaysaan mucooyada loo jeexjiray soo garanaysan ee kolnaadna mucooyada wata sacr waa ka baabiyaadna mucooyada wata mucooyada marka hore wasiirka arrimaha gudaha jeexay mucooyadii labaadna waxa jeexay Axmed Yaashi Cali yalla salay jeexay jeexlii labadii markay isdili waayeen xukuumaddu waxa goostay inuu dadka iyadu laysay goosto waxa yaab kale ee aan aad ula yaabo waxa kamid ah ilaa xalay albaab kamid ah dadka madaxda ka garab dhow madaxweynaha albaabku way furi waayeen telefoon waa la qaadi waayay go'aan habeenimo lagu dhawaaqo Soomaalidu waxa tiraahdaa sacabka hadaan xiriir ku jirin ma habeenkii loo tuntaa
haddaan la doonayn in magaalada la gubo haddaan la doonayn in inamada dhibka geysanaya dadka leynaya in la arko haddaan la qarinayn maxaa go'aanka habeenimo lagu dhawaaqan leh cabdiraxmaan cirra weydiinaya maxaa adoo dadkii walaala ahaayee doodu ka dhaxaysay aan wada hadashin oo dad reer Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliyeed oo walaalo oo wax garad ay jiraan oo waxa dhib ay kala tabanayaan ama waxa dooda keenay kala hadli kara oo dhexdhexaadin kara oo u garsoori kara oo run u kala sheegi kara ka qaldan ay buuxaan maxaa keenay inaad kulba wasiir adigu aad wasiiradaada kamid ah aad tiraado cali caashina garle calina garle madaxweyne inuu qorshe ku diyaarsanaa jiro waxa ku cadeynaya ciidanka militariga ee magaalada sii gelisay waad ogtoo shalay badalka ka mudaharaadaysi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ciidan militariga halka militariga agtiisana degan oo maalintii mudaharaad ku dhacay hal askari oo militari kamid ma soo gal magaalada Hargeysa muddo 7 maalmood oo laascaanood uu ka socday maxaa la yiraahdaa banaanbixii hore ciidanka mudaharaadiyeenna hal askari oo militari kama qayb galin booliska ka qayb galiyay adigu laagi shalay isgoys kasta iyo meel kasta waxa dhigtay rag aan tababar haysan oo aad shalay soo qaramaysay oo jabhada ah ayaad magaalada gelisay oo ciidan militari ku goryaal ku xariisnaa kuwa dadka laayina waa kuwa weeyaan anigu talo waa kuwa bido talo ku sii waxa kugu huri war dhibaatada ruudkeega dawee arintaana si fiican uga fiirso gobolka Salna beelaha wada dega xilalka u qaybi baan kugu yiri ad 8 xil ugu sareeya afarna rag reer Sheekh Isxaaq aad u dhibtay inta kalena ciisaaya gada bursiga tabashadiisu halkaas ay fadhidaaye kuwaad ragga beesha dhexe u dhiibtay ka qaad oo u dhiib baan kugu yiri taladeedii taaseed wallow jilbaad ugu tir madaxweyne saddex isha ka bacdina Cabdulla Sandeera ku dhawaaqay maxaa la yiraahdaa yiriyaan kuma shiri kara ciise sheeric kuma shiri kara haw yaad u dirtay yaa ka odeeyay shalay bay odayaashu ku yimaadeen daraatii ka horreysay odayaashu ku yimaadeen go'aan bay ku keeneen iska daa inaad dad wax garado reer Soomaaliland ama dad kale ka daba dirtay xitaa wasiiradii kuwii gobol ka soo jeeday maadan orin war odayaashii go'aan bay dhiibeen oo ismaanaan afgarane ka daba taga maadan orin baabuur iyo kaarayaal bad ka daba rarta shalay 4-5 barkii galnimo markii gaadhay rasaastu qoriga ka kubay bilaamin waxa ku bilaabantay qoriga ugu weyn ee magaalada yaalo ku bilaabantay wali fursad baad haysataa madaxweyne fursad ayaad haysataa aad dambiga aad gashaad ku sixi karto oo aad ka qaban karto oo maanta aan ku soo jeedinayaa imika ciidanka magaalada ka soo saaray dadka leynaya dhammaan ragii gabad falada galayna soo qabo maxkamad soo istaaji madaxweyne marka jananka booliska iyo ka militariga iyo ka sirdoonka aad reerkiina ka dhigatay ku xigeenadana aad reerkiina ka dhigatay ayaan garanayna aad waxa u socoto laba constituency wadanka waa ka dagaal ka dhacay constituency-ga dhulbaanta loo oran jiray waa ka tagay dawladdaada markaad qaybinaysay waxaad u qaybisay sidii maalintii 2017 oo Muuse dawladda qaybinay Muuse Biixi wuxuu qaybiyay xuduudda ugu shaysa Soomaaliland ee garowe dusheeda saaran ilaa ta ugu shaysu qaybiyay adigu laakiin xuduudda halkan joogto og leeyahay wax qaybinaysa sidaad u qaybisana waad ogtahay madaxweyne anu meehi ragga dhiiga dadkiisa masaariifsada meehi horano maan masaariifsan maantana masaariifsan maayo iyaga ay soo doortay halkan iyaga ay keenay maalmo dhaweytoole waad arkaysa wixii ugu dhacayo waxaan u liqayon lahaa war saaxiibka hunu muukibu ku jiraaye intaad wax la xallin karayso intaad wax la hagaajin karayso intaad maad aragtay miiska dushiisa wax kula hagaajin karayso kula hagaaji buu qorshaygu ahaa dadkaygina wax u qaateen inaan sida kuwa tuugtay iyaga iibsada ee kuma bidhiigooga inaan hayba u qaateen way shikiyeen waayo waxa u barteen dad badan oo dulliya oo ay 30 sanadood Soomaaliland ku metelay oo iyaga dhibaatadood iyo dhiigoo ku naxay ayay u qaateen qofku markuu sagada ka laba cibood yar inuu iyaga u soo shariyo bood yar iyaguna war walaalayaal iyagana waxa la reeb boorema anigu ninka meehi dhalinyarada waxa la ninka meehi anigu ninka meehi waxaan idinlaahay walaalayaal arrinkaasi rag baa waa la iskugu imanayaa waa inuu isku imanaa salaadiintiina waxa la kaco hadla shir isku keena
ciraaduun intayna cadeedu dhicin ka soo saarin ciidanka magaalada khasaarahaana aanu ka bixinin raali gelin oo aanu wadadeeda marin talaynu isku imanaa siduu ragyeeli jiray baan yeelinaa haddii la yidhaahdo dadka haddii ciidanka militariga lagu leynayo xaq waxa uu yeelay inay istifaacaan cabdiraxmaan baafiisa kaydhi way istifaacayaan haddaad ciidanka militariga magaalada ka soo saari weydo ciidanka militariga haddaad magaalada ka soo saari weydo oo raggii dembigaa kale aad soo taagi weydo maxkamad madaxweyne waa la iska kaa difaacaya dadkuna iska kaa difaacayaan sida ugu dhaqsaha badanna talaan iskugu imanaya dhalinyarada waxaan leeyahay magaalada fadhiista annagaa imanayna waa la shirayaa kumana soconayso sidii hore kuma soconayso